بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان لو ذاكينا فرحة عيدا مانتا ضمان عيدا كبوليس الصوماليين سراكيشيسة سراكي الحجين كيسة ألف ليديسة يدب ليديسة جديد كيسة انتبه وعلينا همباليو سنة جوردة طلباتني سجالات أساس كي عيدا كبوليس الصوماليين عيدك بوليس الصوماليين علينا همبليو مركل الدين همبلييننا آد أيام حواي وفرح سنة هاي مالين تروين إلهي إن أننا عن سود جوجلو أي نقطة التواتي سيال كاستانو سنة كستوال الدبادقي أنت بدن معلومات ظروف أدق أي جيران موياني أنت أنا ضد بسود جوجل كوي بانت جوجل إلهي نقدر دقي معلومات كرر وكوري إن شاء الله وارجينا وعربا عيداً كبوليس كالصوماليين مبدئياً وأمنية ضدك أما نفطة هانتيدا ومضوا أيلاده قفك الصومالية هي مركو أمنية سجورجي سجوجو وحقوق فكرة وحي تاي عيداً كبوليس كالصوماليين طبعاً ظروف أدق أضل كردن وصومري أي عيداً كنا أي صومري لكن ما أنت وحنو جدنا إن أي محوها أي عيدك أي آدي وصو كبعيان أو وصو محنكرة بالميان محوها عدين على الوربة عيدنكو ضدك ولا الشقية وحالي هذا مركز كفتميو عيدا ماذا أفرت عيدا يعني لنا هو أبو البحث وياه اللي يراه لأن قانون كدقنقل كيسر واكشقيان ضدك نوال نوريه oo waxa ay ka shaqeeyaan waa dad qawaaniintiina gacantay ku hayaan oo fulinta qawaaniinta iyo ilaalinta sharciga ay mas'uul ka yihiin nin jaahil ah oo reer baadiya ah waxba garanaynin inta badan kaba mid noqon karo nin cadow inuu hortaagnaado cadow uu dilo loogu tala galayna doorkaas kala ma ciyaari karo nin kale oo dambiile oo maxkamad soo xukuntay inuu ilaaliyo oo hayo oo dhaqan cilin dabcan oo ku sameeyo la rasido marka ciidanka booliska Soomaaliyeed meel khaas ah ayay mujtamaca ama bulshada Soomaaliyeed uga jiraan hawshaasi hawl fudud ma aha hawl maxaan ku raadayay aad iyo aad u sahlan ma aha waad maqlayseen taliyaha haatan halkaan intuu nooga sheegay Interpol ka midnahay koox maxaa urur kale oo Hebel ka midnahay mid kale oo Hebel ka midnahay waxa soo dhan ururadaas oo dhan waxay astaan u yihiin calaamad u yihiin يعني دورك مجتمع Soomaaliga iyo qawaaniinta iyo xeerarka Soomaaliga ilaalintooda marka laga yimaado boolisku sidoo kale wuxuu Soomaaliga ku mathalaa ilaalinta xeerarka caalamiga dabcan xeerka xuquuqda aadanaha qof kastoo ciidanaha mas'uul ka saaran yahay inuu ilaaliyo ilaan جزيرة عدلا يهودا لما معاملة سهولة معاملة بس كلا الله معاملة وحولا معاملة ضد ميليتريجا نبض سجدة أسلوبته كمان ضد إلى معاملة الحقوق بين آدمك وأساس كل ويكون الحساب لكن وحيابان كلا حيران كعالمية إلى لنتون دنبية عالمية إلى لنتون ضدك كلا إلى محاوي أدوية ما أنت جلوبال كنقطي أن كنا ناي وحواي عرق إذا جير أو محاكل جودة جروان بوليسك أو حل صارن سيدا سوحي كل في بوليسك بركو إنه نقضه ضد البحر أو صومالي كان الله معامل كلا عالم كان الله معامل كلا سيدا زدرات دي دردار الكيغا عن كل الدردار مياعيدك بوليسك صومالي وحوى أقون حداني أقون الجيرين عيدك بوليسك صومالي واجبات كيسا سفي عن مقبولا كرو لأن طلاب كستو أو عيدك بوليسك صومالي أو قاضي هاي أقوامي كسريسن تاعي حرفة كسريسن تاعي هذا وحنا نتوسي بارست الدنبيرة إلا عصرية قرب عصري كمبيوتر رؤية لابب DNA وحيابا بدن ومحنكو هذا علمي آد أسر ريعة إن محنكو بوليس أي شغليسي أي كجرتو أي قشي مركا وهيئات سيدة بقى أقوام نوع والبلد وباهم واي إلي خبر قولها سيدة درادي تليها بوليسك iyo taliska iyo guud ahaan waan hambalyeynaya dadaalka ugu jiraan inaan dhisano oo aqoontaas iyo xirfadahaas iyo casriyeyntaas
aan ku dhisano dadaalkii ugu jiraan oo tababarada iyo muxuu ahaa la xiriira ilaahay idankiis 46 tababar oo 30 iyo dhowr dibadda lagu soo qaatay ayuu hadda taliyaha noo sheegay waxaan rajaynaynaa muddooyinka soo socda inay isbedeli doono miisaankaas iyo tiradaas oo tababarada kuwa gudaha lagu qaadanayo ay badnaan doonaan kuwa dibadda lagu qaadanayana ay soo yaraan doonaan marba marka ka dambayso aqoontaas markaa waxaan ku soo darayaa aqoontu markaa island jasiirad gaar ah oo meel ku taalla ma aha aqoontu hal hay'ad oo aqoon wixii loo baahnaayo dhan ayadu ay ku kooban yihiin ma jirto sidaas daraaddeed booliska Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa hay'adaha kale ee aqoonta ka shaqeeya jaamacadaha hay'adaha cilmi baarista waxaasoo dhan boolisku inay cilaaqaad la yeeshaan si ay aqoon isdhaafsigaas aqoonta ay uga faa'iideystaan booliska Soomaaliyeed aqoonta uu u baahan yahay waa nooc kasto aqoon oo jirto u baahan yahay ma aha kaliya forensic iyo maxaan ku raraa criminology iyo aqoomaha psychology u baahan yahay social science u baahan yahay engineering wax walbo aqoona dhaqaatiirta u baahan yahay ayaa maanta oo boolisku u baahan sidaas daradeed aqoonahaas in badan oo kamid ah dalkeena laga helaa marka boolisku inuu jaamacadaha cilaaqaad la yeesho oo tababarada qaarkood ay oo aqoonta gaarka ah ee cilmiga gaarka ku salaysan jaamacadaheena oo ula yeesho hay'adaha kaalmeynayaan ay nagu kaalmeeyaan aqoontaasi inay gudaha timaado oo jaamacadihii iyo hay'adihii cilmi baarista iyo wixii inaan la macaamilno oo boolisku uu la macaamilo si aqoonteennii ay mid maxalli ah oo gudaha ay u noqoto marba marka ka dambayso ay u soo noqoto waan rajaynaynaa maalinna inaan gaari doono boolisku jaamacadiisa yeesho oo maxaan ku iraahdaa wax badan ayaguna ay marka aqoonta hal la xoojiyo si shaqada boolisku shaqo xoog leh nadiifna ah qurux badan ay u joogto waxaan rabaa saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed da'yarta soo koraysa ee boolisku ku soo biirayso waayo aragnimada aad leedihiin hala siiyo sida muxuu ahay waxyaabaha astaamaha dhaqanka aanan u lahayn Soomaali haddaan nahay laakiin marmarka qaarkood dagaalada sokeeye iyo burburka dhacay oo nabiday waxaa ka mid ah qofka ka hooseeyo qofka ku xigo inuu kor u kaco in marmarka dadka qaarkii ma dadka dhan inay dhibsadaan oo ay u arkaan kii bedeli lahaa inuu yahay waa lagu bedelaa bas adiga waxaad haysataa laba khiyaar haysataa qof aqoon leh oo wanaagsan oo meeshaan hebel uga horeeyo qofka soo barbaariyo la yiraahdo miyaa ku bedelayo mase mid dhaga xirana ku bedelayo laakiin adiga waa lagu bedelaa waa la hubaa in lagu bedelayo maalinta noqotaba sanad joog laba joog 10 sano joog 20 kala joog waqtiga doonto joog waa lagu bedelaa sida daraadeed saraakiisha sare saraakiisha dhexe saraakiisha hoose ninba ninka ka hooseeyo wixii uu dhaamay inuu soo baro waayo sidaas kaliya ayaa muxuu ahay oo aqoontuna waa maxay aad baraysaan waa khibrad aqoontii kala jaamacadaha loo aaday hay'adaha loo aaday tababarada loo aaday buug iyo qalinka aqoonta ku saabsan waa la soo qaatay khibradda iyo waayo aragnimada waayo mid aad adigu lagaaga baahan yahay khabiira tahay khabiira la macnaa expert waa maxalli expert waxa la waa accumulation of experience khibrad isku tagtay waayo aragnimo isku tagtay yaa qofka khabiir ka dhigi kartay qofka jaamacad khabiir kama dhigi karto inuu jaamacad dhigta khabiir kama dhigi karto ninka 5 sano 10 sano 15 sano baare dambi baare soo ahay oo dambi nooc kasta soo arkay ee soo baaray khibradda uu leeyahay jaamacad lagu ma dhigto jaamacadna laga helayo waa middaas midda la rabo in uu baro midka berri bedelaya asiga ummadda u shaqayn doon waa inuu waxa shakhsi u arkira ummadda iyo xil ummadda loo haayo inuu arko saraakiisha من kuwa sare iyo kuwa dhaxay kuwa hoose intaba waa kula dardaarmaya arintaas aad iyo aad ay xoog qaad dardaaranka labaad ee aan ciidanka booliska Soomaaliyeed inaan kula dardaarmo aan rabo kor iyo hoos ilaa meesha u hooseysa shaqadaas weyn mas'uuliyadaas weyn ee ummadda aad u haydaan hal cadow ilaada cadowga aad علمك iyo aqoonta u yeelateen oo qaanuunka idin siiyay oo aad daafaciisaan ma ahana cadow kale ilaada cadowgaas laba cadow kale ilaada labadaas cadow waa maxay illa bulshadii aad toos ula macaamilay mid waxa waaye maandooriye nin booliisa oo maandooriye isticmaala nooc doonaha ahaade
آمن ما أهان هذا أسوها يستون أسوء آمن ياي حتى ضدك وما هيستان إنه آمن ياي واحد أسوها يستدنا ما هي ده واحد ضدك وما هيستان تاي تالس كعيدا كبوز الصوماليات يتلياش سرياش لما ملك الجوجان وحنقول دردار ميا إن أي كإلاليان عيدا كإن أو بلود يشو ماندوري إنه استعماله نينك ماندوري استعمال مسكحدي سمد الجنة جت من تيجا وسمينا يا قرارات وجارة يا مد الجنة محنقول هذا تقاليس وما في الله محنقول هذا عافمات كيس وما في عنا مال أو كنا قكر قفي عنا بوليس نقفي عنه أباهية قف جيل كان كفي يومان كان كفي يوم أباهية بوليس كسيدي سبيان لسوق جلين نقف بالود له كان هذا كجرنا على لا تعالوا من عصوب بالود اللي يعني سوق جلين مسؤولية دروي واي سراكيشو ويل كان أدرك وهاي قبل أن أبتغى وهاي هل كان محنكور هذا إنك صاحبك يا محوا وإيدي بتي قدر ماشى إن أنا يديه قدر حقه أولى هو صومالي لكن كإيراني بوريس في عم النوكر ما يقدروا عليه كان ملك الأوراد سي مالها كلا جيسو محوا قربك الله قرده دي رنان تسوا ومدى مجتمعتها إلهي ورتشنا وراجي كتاي إلهي أجر حسنات وكاسيريا نية سن إنما الأعمال بالنيات نية داد وهذا سنتهاي أو تخلد تحتها خلط كاسي محوا هاي وخلط عذر دار له لكن ممكن يدك أجر انتهى وأد حيرك يا نظامك يا محاكرة سلوكي وناكسري هذا الإيرانيين قف قلبي قدام بيلك أهاته إسك إيرانية بوليس كان كإيرانية بالوضع يوم محاكرة ماندوري إن دل كائن ما أنت ماندوريه عدو نبأ أو هايوا دل يرد إنه كفافوها بوليس كوادتك إن كلا دجالمان أو لجسوا أي كسران أو كإليان مجتمع عضو كاس ماندوريها لجرب بوليس كواعد وحرصار وبوليس نين السجيبة محوها فرد ظاهرة وقعمة ظاهرة واحد ظاهرية لي نين السجيبة محوها سيسويا لو حال كيسو إلهي أجيا محوها ماندوري إلالية أو ما أودتك إلالية دردارا كاسوا أساس دردارا كلبات عاي معها عيب معها عذرنا هايستوى مجتمعين ما تجر إنا كحشونون مركز قبل وحبة ترمز دردارا كلبات مسوق واي كوربشن بس ما أردت صوتور أنت محوها هاي تصبح شرعي قبل فيها إيجا قال لي صوتور وسكسعه جوب بوينت كان وجود بلا إيجا بابور كستو قرحه مقالة مقدشة كدعي يوحى وحلقو قرحية هي بالله عليكم جوب بوينت وصامر مال أسكري أما بوليس هذا أما النبض سكتها هذا أما ميليتري هذا أما أسلوب هذا مال أسكري تاجي هو صامري هدي هل أو كسب قضي أو قال الآن أما سئل أو كصامري أسود ذلك أو كصاب بحث أو هل بعد كصاب بحث هل أفرادي هل شنادي هل لحادي هل طبرات إنه كصاب بحث معقول ما بابورتا محو بوليس كربور هذا السيان وحكم ده أنت بدل بابورتا قرحية إن المجال مشلو أحسن مننا أيوة سميسنا وركبنا أي مجال الصوت جلان كيلومترات كحاجة إنه كصوت دقائق الصوت جلان إن ولي برادياش بوليس كلجنا هذه اللي بابور نوع عاصة على تومسية هاي أو قرح سيدو هذا أنا بابور كويمادو قرحه أو ضد كلايو كربشنا كمسؤول أنت أقون يري أما الدلال أيضا الوجر صوص بقتين ويرتاي برسنتي جروة بنا هذا لأنهاي وحوان نقفك كران لكن وان نمبر يرو نقنا سيدا هذا أي وحود عين يسيدا وحود عان مدنا وما دعي كران أجري حسنات كم مرات سنة إن الأسكري حق وسيج استبابكم بكم بري عدوا دونها هذا بوليس كوجار ما هتم إذا ماذا قرب كسيدو لما كقوبان تاني هاو كله الريانو وبوليس كقفكي ظروف جارها كجرا ظروف عادي ممكن تاي بقول بوليس كمسؤول هالديران لكن هذا ظروف جارها كجرا وسوق ولا تجنا نبصقيت هدي تاي أسلوب هدي تاي ميليتري هدي تاي أنكو كلا بدنان meelaha aan joogno meelaha ay soo maraan hadii booliisku ay magaalada Muqdisho iyo Jagboontiina Muqdisho ku yaalo booliiska inay masuuliyad ay u badan yihiin military ku banaanka joogo jira asluubtu kuwa qaar kood magaalada ku yaalo joogtaa
ogow askariga corruptionka ku soo daayinaya baabuurka qaraxa ama waxa qaraxa laga sameeyo dadka adaad dilo haysto ogow adaad dishay kan isqarxiyay balaayo qabaha am dadka ma dilin dadka adaad dishay maxaad ku dishay inaad soo daysaad ku dishay inaad ilaalin weydaad ku dishay meel kasta joog mas'uuliyad kasta hay aad iyo aad waxaa la yiri fulay xantiis ma booga waa huba inaad xantiina iyo xanta ciidamada kulli in la og yahay baabuurta ciidamada lagu soo geliyaa saraakiila checkpointyada ka soo fasaxa oo askarta amar siiya waxa xanteena ma moogin waana la xantaa meel cidlaana la iska ma xanta ogaada xanta waa laga yaabaa hal xan haday jirto in 3 iyo 4 5 laga dhigo oo xogaa lagu sii dardaro waa macquul laakiin meel cidlaa inta badan meel cidlaa kama dhisanto wareedhahay khayr allah idin guuleysta waana guuleysateen insha Allah wiil cadawga ummadda Soomaaliyeed ee arxan la'aanta ah ee aan qof iyo laba dilaynin ee boqolaal u dilaya dadka waxoogaa yaroo lacag ah laguma doorsata saraakiil aan jirto hadda ciidamada qalabka sidoo dhan qaybahooda kala duwan qaar kamid ah ka tirsan oo hadda wali baaristooda ay socoto oo aan hay'adaha ajnabi xataa la kaashanay la leeyahay asaa ka soo daay checkpointiga la leeyahay maalinta qaraxibal dhacay saacada ka hor ayuu meel hebel lacag ka qaatay la leeyahay waa lagu daba joogaa maalin maalmaha kamidana waa la soo qabanaa saxaaro qoro dheeraa la isaga tiraha la yiri ceebta ka fogaa ninka darajo leh askariga waaba askari waana asal sidii kama marre ninka darajo leh sarkaal booliis ah sarkaal nabad sugida sarkaal military ah ama sarkaal asluub ah ee ay ku cadaato baabuurkii meel hebel ku qarxay boqolka qof dilay asaa checkpointi ka soo daayay ama baabuurkiisa lagu soo gudbiyay oo hor socday ay ku soo cadaato waa maxay aakhira beel iyo adduunyo beelka u dhiman ilaahay idinkiis waa inay imaanaysa haddaanay jirin oy been tahay la waxay maba imaan doontaba ilaa wixii fak xaqaa'iq in la helaa rabaa haddaan xaqaa'iq loo helin qofka dee dambiilo waayba lama dhihi karo hal iska tuutuuma haddii la doonay laakiin xantuna waa nugu badan tahay tuumadu waa nugu badan tahay baaristaasna waa socotaa war hooy halas ilaaliyo adduunyadana halas ilaaliyo sharaf iyo karaamo iyo cizi aan ku baahannahay inaan ku noolaado aakhiradeenana aan ilaashano meel aan ka soo noqon karno ma tegayn hadhow intaas labadaas arrimood oo dardaaranka ah oo inay ka foojignaadaan si gaar ah weliba ciidanka booliska Soomaaliyeed maadaama ilaaliyayaasha nafta iyo maalka dadka ayagu ay yihiin si gaar ah mas'uuliyad inay isaga saaraan la dagaalanka maandooriyaha ka ilaalinta maandooriyaha hadday tahay ciidanka inuu soo galo iyo shacabka ka ilaalintiisa intaba taliyaha waxaan asagana si gaar u farayaa qaybtaas boolisku takhasusaadkiisa in la xoojiyo waana sida hadda socoto oo tababaraan qaybta la dagaalanka maandooriyaha in la xoojiyo qaybta kale oo ayaguna la dagaalanka maxaan ku raadayay tacadiyada kuwa haweenka ku jawr fala kuwa caruurta ku jawr falana si gaar ah in loo ilaaliyo li'anna caruurteenu waa mustaqbalkeena berri caruurta in lagu jawr fala oo waalid uu ku jawr fala ama midaan waalid bixin ama macallin dugsiga macallin wuxuu doonaa aade inuu caruurta lagu jawr falo la abuse gareeyo dambi umadeed ma aha dambi qofeed waa ka weynaanaya ummad dhan oo mustaqbalkeedii la baabi'inayo kan caruurta maandooriyaha siinayo caruurta maxaan ku raadayay cilm nafsiyan u dilayo u dhaawacayo cunuga yarka ah asoo yar hadii lagu tacadiyo ma ka go'ayso qalbigiisa wiligiis waa la noolaanaya tacadigaas iyo naxdintaas iyo argagaxaas iyo maankiisu ma noqonayo maan degan oo wax fiican ka shaqeeya ma noqonayo aan ilaalin caruurta booliskuna si gaar ah ha u xoojiyo qaybta ilaalisa caruurta iyo haweenka hooyooyinka ama hooyaha ama gabar ha ahaatee waa hooyo in la ilaaliyo
hooyada gabadha ninkeedu waa abuse gareyn kara walaalkeeda abuse gareyn kara hooyada iyo aabbaha dhalaya haddii kuwa fiican ahayn abuse gareyntu waa maxay waa caanaan aan mudnayn dil aan mudnayn oo physical iyo dil iyo dhaawac aan mudnayn oo qalbi ah bahdilku waa dhaawac qalbiga gaaray waxaan rabnaa inaan dadka ilaaliya ladiina booliiska Soomaaliyeed takhasusaadkiina ku xoojiya meelaha aan ka nugulnahay waxaan ka nugulnahay carruurta ka nugulnahay haweenkan waa ka nugulnahay waxa ku soo haray intaas ka bacdi waa dadka waayeelka da'da ah booliiska Soomaaliyeed barigii hore waxa u dhaganaa jiray askari traffic ah oo muxuu ahaa hooyo waayeel ah jidka garabka iyo jidka gudbisiiday yaa meel badan ugu dhaganaa jirtay waxa laga rabaa waa waxaas naxariistaas hooyadaas waayeelka ah jidka baabuurta inta ka xira garabka inuu inta ka qabto oo hubiyo inay si nabad jidka ku gudubto inahaas waa inaha sida gaarka ah uga dardaarmayo anuguna aan il gaar aan ku eegaya cidii howlqabad fiican ka qabatay cidii kale aad iyo aad ayaan u amaanayaa General Ali Gaab iyo maxaan ku yiraahdaa caruurta oo hayo caruurtaasi ilaahay inkiis General waa kuwii bari noqolaha wax walba intay ku jiraan sarkaal booliis fiican noqolaha dhakhtar fiican noqolaha injineer fiican qaadi fiican oo xaakim madaxweyne fiican bari noqolaha maanta waxaad ka dhigto adiga iyo tiimkaaga ayay caruurtaas noqonayaan bari ogow General maanta wixii laga dhigay bari noqonayaan sida maanta loo barbaariyo wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta Soomaaliya barbaarintu waa gooni waxbarashada waa gooni barbaarinta cunuga iyo jiilka waa midda raadka ku yeelato aabba fiican ama hooyo fiican bari inuu noqdo ama hogaamiye fiican bari inuu noqdo mas'uul fiican oo aan dalka iyo dadka khiyaanaynin inuu noqdo waa meeshaas hoosaa lagu soo baraa gurigoodii waa guriga adiga aad odaga ka tahay waay si gaar ah marka in maxaan ku rahaa u ilaalino waay mar kale ciidanka booliiska Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo qoysaskooda waxaan leeyahay hambalyo 79 sano waqti yar ma ah waa hooyada ciidamada qalabka sida waxa la idin yiri waa inta ha idinka muuqato hooyanimada hadii aan leeyahay shaqadiina ka muuqato hormood inaad tihiin iyo moral lagu daysado muunad lagu daysado inaad noqotaan la rabaa ma aragta ciidanka booliiska Soomaaliyeed in la yiraahdo la rabaa marka waxa soo dhan iyo mas'uuliyadaha soo dhan mad xambaarsan tihiin Allah idin fududeeyo dawladuna waa idinku garab taagan tahay shacabkuna waa idinku garab taagan yahay ileen shacabka tihiin muxuu ahay ilaaliyayaashii oo caway casr u taagnaa u soo jeeday marka la hambalyo garabkiina Allah galo aad ayaan u maasantiin dadaalada iyo wadaan sidoo kale finally waxaan u mahad celinayaa dalalka saaxiibada ah walaalaha ah ee runtii garab istaaga iyo kaalmada noo geysto meel kasto ay qaarad kasto ku yaalaan waa ka mahad celinaynaa wanaageena iyo garab istaageena aad ayaan uga mahad celinaynaa aad u maasantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi